السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا شرفتا ماموسكا يكرامة مدنات بانينين سلاني وقت وعن نرول في عن يا عافيمات ما يانينين رجيني ناكسو دوادا كنال كينان عافيماتكا يدريالكا عافيماتكا يو كليب كان aynu ku eegayno ama aynu ku soo qaadan doono sifada ka soo baxda afka ibn aadanka dad kamida oo marka aan ahayn sifad qurux badan isla markaa luqadda qalaad ama medical terminology ahaan la siiyo bad breath waa urta ama neefta marka aan quruxda badnayn ee ka soo baxda afka ibn aadanka ama neefta qarmuun ee qofka afkiisa ka soo baxda haddaynu dhinac kale ka dhigno arrintaasu waxay abuurtaa runtii dhibaato aad u ballaaran qofka ay ka soo baxayso waxay ku ritaa cuqdad nafsi oo aad iyo aad buu u dhibaatoodaa oo xilli kasta iyo waqti kasta afka ayuu gacanta ku hayaa oo bulshada lama sheekaysto oo dadka runtii uu ka go'aa oo gooni socod ayuu noqdaa arrinta labaad ee kale waxay samaysaa inay abuurto nacayb bulsheed oo xilliyada qaar qofku isagaan isogayn haddii afkiisu urayo ama dhibaato ay ka taagantay waxaa dhacda mararka qaar inay bulshada inta kale ay nacaan ama ay ka goostaan ama hadalkiisa iyo sheekadiisa ay karaahsadaan arrintaasi xilliyada qaar xaalad caafimaad bay ku timaadaa marna waxay ku timaadaa arrin qofka dhinaca hoos martay ama uu hilmaamay haddaba 4 qodob baa runtii sababa afartaa qofku inuu dhug weyn u yeesho ayaynu dabcan halkan uga jeegaynaa isla markaa qaabka dabeeciga ee runtii ula tacaali kara isagoo gurigiisa joogana oo markaas xaafadiisa ku noolna waxa loo yaqaano home remade-ka inuu samayn karo iyadana waxbaynu iskaga tilmaami doonaa bulshadana waxaynu soo jeedinaynaa qofka noocan oo kale marka la kulanto inaan qofka la didin oo aan la eriyin sababtoo ah xaaladda caafimaadka ama medical ethics-ku ma qabo qof ibn aadan oo ajir hayso in laga goosto qofkii wax loo sheego oo markaa haddii uu wax dhinaciisa ka dhacay ay yihiin xaalad caafimaad hadday tahay oo ilaahay keenayna in lala samro oo markaas arrintaas lala ogaado cagta loo dhigo haddaba arrintan waxaa keena 4 amuurood 4 amuurood baynu doonaynaa insha Allah inaynu kiliibkan daaha iskaga qaadno si qof kasta iyo bulshadu ay ogaato qodobka koowaad waxa sabab wax loo yaqaano abnormal digestion waa habdhiska dheefshiidka qofka ibn aadanka ama dadka ibn aadanka oo markaan caadi u shaqaynayn oo qaabkii iyo systemkii uu kala marin lahaa cuntada aynu isticmaalno qaybo kala duwan ayuu ka dhigaa qayb jidhkeena ayaa u baahan qayb waa markaas qashinka systemkii uu jidhku marayay ayaa si fiican gaar ahaan dheefshiidkii ayaa khalkhal ku dhacay ama arrintaas ay wax ka jiraan ama marka ay wax ka qaldan yihiin arrinkaasu waxa uu keenaa xilliyada qaar inay hawadii iyo jidhkii sida caadiga u kala soconayay inay markaas ay khalkhasho oo qofku markaas xagga afka uu ka neefsado oo markaas awoodii iyo wax kastaaba ay dhibaato ku timaado awoodii dabeeciga ahayd ee dheefshiidku uu ku kala saari lahaa cuntada aynu isticmaalnay uu ku ridqi lahaa uu ku kala hagaajin lahaa qodobka labaad waa stomach ulcer caloosha qudheeda oo dhaawac ka taagan yahay ama dhaawac iyo nabaro leh iyaduna waxay sometimes ka qayb qaadataa in ay dhibaato ay jirto sidoo kale qofka inta badan beerkiisu aanu caadi u shaqaynayn ama xanuunada inta badan beerka ku dhaca iyagana qaar kamid ah ayaa arrinta lagu arkaa sida xanuunka jaundice-ka iyo hepatitis-ka xanuun kamid ah qaybo kamid ah xanuunada cagaarshowga Soomaali ahaan aynu naqaano beer xanuunka dadka qaar qabaana iyagana jira ayay dabcan arrinta noocan oo kala marba lagu arkaa qaar kamid ah qodobka saddexaad waa bacteria in the mouth waa bacteria inta badan ku dhalata oo foreign ku noqota afka ama marka horeba ku nool oo asal normal flora wax la yahay ugu noolaan dhibaato u geysanayn laakiin marka dambe isku bedeshay inay jiro noqoto oo arrinta ay dhibaato qofka gaarsiisay iyo dhaawac arrintaasuna dabcan way ka qayb qaadataa oo way keentaa neefta qofka ka soo baxaysa afkiisa inay sifad abuurto sifad la timaado qodobka afraad waa lack of hygiene on the teeth
waa qofka oo markaa nadaafadda ilkihiisu ay aada u liidato oo cadaygiisu aanu ahayn markaa mid regularly iyo constantly xilli kasta iyo waqti kasta uu isticmaalayo. arrintaasina dhibaato ayay keentaa oo qofka ay ku abuurtaa maadaama uu markaa afkiisu aanu nadiif ahayn. hilibka iyo cuntadii inay markaas ay sifad keento ayaa dhacda. inta badan 3 arrimood 4 arrimood bay ku timaadaa oo qofka ku keenta. haddaba 2 ka mid waxay u baahan yihiin medical treatment iyo medical procedure in la mariyo. caloosha iyo beerka iyo runtii dheefshiidka qofka aan sidii lagu talagalay u shaqeynayn waxay u baahan tahay in la ogaado qofka, baadhis caafimaad la mariyo, la daweeyo calooshiisii iyo dheefshiidkiisii iyo arrimihii beerka kaga dhacay ama beerka khashin isku tuulay. hadday tahay arrintaa in si markaa medical ahaan loo daweeyo ayaa muhiima. dabcan inaku kaliya waxaanu ku talin karnaa in qofku inuu dheefshiidkiisa caloosha socodsiiyo oo runtii calooshiisu ay ahaato mid soconaysa. haddii uu markaa caloosha nabarre ku leeyahay ka ilaaliya waxyaabaha ku kicinaya, isla markaa beerkana uu qudaarta iyo runtii waxyaabaha fluidiska ah ee beerka u wanaagsan ee cabitaanka ee u fiican inuu aad u isticmaalo. haddaba labada runtii aynu imika kilibkeenani saaran yahay waata lack of personal hygiene, qofka dhinaca afkiisa ah inay ka jirto nadaafad darrada dhinaca afka. waxa uu samayn karaa inuu si joogta uu 3 goor maalintii cadaydo. taas iyadu waa iska muhiim. habeenkii markuu sii seexanayo inuu sii cadaydo, subaxiina inuu cadaydo. xilli kale oo ilaa tuhurada hadduu cadayan karana waa muhiim hadduu wax dareemo. taas waa qodobka runtii aynu aadka ugu talinayno. bakteeriyada afka ku dhalatay saan ku daweyn karaa ayaa haddaba isweydiinteeda leh. jeex liindhanaan ayaa soo qaadanaysaa, dhagayaraha inoo saarana waa tumaysaa. markaad dunto ayaa jeexa liindhanaanta aad ku daraysaa, biyo yar baad taabsiinaysaa, kadib ciridka ayaad ku cadayaysaa, biyaha yarna waad ku luqluqanaysaa. habeenkii marka sii seexanayso ayaad isticmaalaysaa iyo subaxii marka soo kacdo aanad wax kale isticmaalin. taasi waxay kugu abuuraysaa bakteeriyadii afka ku dhalatay ee sifada qarmuun abuuraysay ee markaas runtii adigana ku dhibaysay, mujtamacana dhibaysay, ee dhibaatada faraha badan kugu haysay inay kaa dawowdo. laakiin waa inaad qaabkan u isticmaashaa, dhagayaraha aad tuntaa, liindhanaanta aad ku dartaa, biyo yar aad raacisaa, caday yar baad ku marsanaysaa, waad ku cadayanaysaa, biyahaad haddana ku kordhinaysaa, waad ku luqluqanaysaa ilaa hunguriga iyo dhammaan afka ayaad ku luqluqaysaa, aad gaarsiinaysaa. arrintaas waad wadaysaa muddo joogta ayaad wadaysaa ilaa inta isbedel toosa aad ka dareemayso. waxaan aad ugu rajo weynahay inaad dareemi doonto isbedel aad u ballaadhan, arrintaasuna ay kaa tegi doonto oo si ay isku macasalaameyn doontaan. intaas ayaynu ku soo ururinaa. fadlan la sii wadaago, sii sheergareeya bulshadeena kale. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.